السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي وناكسن صاحب بيال هدو إلهي هذا وحن سوق بينا ما يدي الصومالي دا متكمدة وحنا راعين دونا كوكالي oo si fasiri doona oo inoo si cadeyn doona waxaana ku soo khatimi doona hadoo ledno sheeko gaaban oo inuu kaga faa'iidi doono mahmahyadaas amadaas waxay ku leedahay intaadan falin ka fiirso to kale oo taasi qeexaysa waxay ku leedahay ereygaagu wuxuu ammaano leeyahay intuu afkaaga ku jiro to kale oo taasi qeexaysa iyadana waxay ku leedahay ereygaaga hortii afeef yeelo aqalkaaga hortiisana oon yar dhigo tii koowaad aan ku noqono wuxuu ku yidhi intaadan falin ka fiirso maxaa laga wadaa yacni shay baa rabtaa inaad samayso oo rabtaa inaad ku dhaqaaqdo wuxuu dooni ma ha noqdee dee intaadan hawshaas samaynin horta waxaan isweydiiyey muxuu yahay tusaale inaad rees samayso aad damcaday ood guur u kacdo dee ka fiirso qofkan aad kulmaysaan iyo wadooyinka aad u marayso kharash iyo awood waxaad haysato bal horta intaad ka fiirsato aduu dib iskugu noqo qofkan laftiisa ka fiirso oo barashadiisa iyo aqoontiisa baxthi badan iyo raadin ku samee intaadan falin oodan hawshan dhex gelin ilaa waxa la yiraahdaa guurku marka hore waa wax sur dhooban marka dambana wax sima ballaadhane intaadan dhex gelin talaabada koowaad horta ruuxa iska hubi si fiican u baro la sheekayso xogtiisa hoose soo bad dabeecadaha qofkan iska ogow markaad qofkii soo barato eheladiisa soo baro marka intaas oo dhan aad maartay soo ogaato oodan weli qofkii la hadlin adoo haddana isweydii hawshan ma geli kartaa haddaad gashase maxay kugu qaadan kartaa diraan dheri waa intaadan falin ka fiirso tan dambe fasiraysa ereygaagu wuxuu ammaano leeyahay intuu afkaaga ku jiro kol haddaad dee wixii dhex gasho ama hadalkiiba kaa soo baxo taladii way firdhay soo maaragtay marba hadduu hadalkii kaa soo baxo oo aad tiraahdo qofkii dee ama waaban ku rabaa ama shaqadan baan doonayaa ama waxaan aan qabanayaa aad tiraahdo dee dadku way ku ogaadeen hadalkaagaasina meel badan buu marayaa hadduu xun yahay ka waran oo tiraahdo hebelow waxaan adaan ku xanqarsanayaa hebel ha u sheegin adigaaba celin waayo xajin kari waayo see loo sheegayn dadku way ogaanayaan ereygaay wuxuu ammaano iyo ilaashimo iyo xifdi leeyahay intuu uurkaaga ku jira mar hadduu afkaaga ka soo baxo cidnaha ku eedaynin marka intaadan ereygan sheegin ka fiirso waxa ka dhalan kara intaadan falin ka fiirso maahin ereygan kaa soo baxaya wuxuu ammaano iyo xifdi ku leeyahay intaad adigu haysatee markaad soo dayso waxa ka dhalan kara isweydii hebel baad u sheegtay sooma haddaad hebel u sheegto muxuu samayni isweydii waxaa kaloo talabaad ay noqon karta iyadana ereygaaga hortii afeef yeelo aqalkaaga hortiisana ood yar yeelo waxaad rabtaa inaad hadasho qof aad la hadlaysana waxaa laga yaabaa inuu dhibsado waxaad dhahaysaa walaalow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddaad khalad u aragto ka raalli ahow hana ila yaabin markaa intaad sheegto kadib warka u bilow waxaad dhahaysaa walaalow iga raalli ahow waxaan rabaa inaan ku weydiiye iga raalli ahow waxaan rabaa inaan ku weydiiye qof rabaa raalliga hormarsato dee dhowaan dhibsan maayo waxaad tiraahdo tusaale ahaan qofka waxaa la yidhaahdaa hebel madoobe ama fooley baa la yidhaahdaa wixii marka adigu kula xun yahay waxaad dhahaysaa walaalow magac baan rabaa inaan ku weydiiyo haddii aan lagu dhihin iyo haddaad dhibsato toona anugu xukama hayee inaan ku weydiiyaan rabaaye ka raalli ahow ama ka waran haddaan hadalku weydiiyo anuguna aan aqoon u lahayn haddaad iiga jawaabto
qofka marka uu soo istaagay xoogaanaya waxaan aadan u qastine aqoon la'aan inay ku hayso kadibna uu ka jaahil bixinayaan salaam waxa tiri niyo magac waan maqlay lagu dadku sheegayaan raali inaad ka tahay in kala raba inaan ku weydiiyo oo muxuu yahay foolay baan maqlay waa lagu dhahaa ma wala raali kama yahay dhihim ku dhigay marka waa erayga hortiisa afeef yeelo afeef baad si baxsatayba aqalkaaga hortiisana oo diyaar de gurigaaga ilaasho guri dayacan ha ka dhigin guri ilaashaysan ha noqdo haddaad mooryaanto dhan soo kaxdo gurigaaga keento oo dad kale oo gurigi aan aqoon gudaha aad barto de dhawaan waa lagu leeyahay Soomaa waa guri xogtiisa dhan la og yahay gurigaagu ha noqdo guri ilaashan waxa weeye dadkooda iska soo wada galayeen hadduu noqdo guri la iska soo wada galayo dadkooda iska soo galayaan waa albaabkiisu furan yahay de sirti gurigu banaanka ay taala dhibaatana way ku iman kartaa oo de qof walbaba oo soo galay amaan ma ah sirtiinina banaanka imanaysa haday noqon lahayd idinka laf ahaantiina dadkiina ku jira meesha sirtiina banaanka tagaysa dabeecadiina dhaqankiina noloshina waa la ogaanaya gurigiina sirtiisa banaanka oo leeyahay waxa guriga yaala iyo sida gurigu u dhisan yahay iyo nadaafadiisa iyo xogtiisa oo dhabba banaanka u baxaysa marka waxa la rabaa dadka iska wada ceeri lagu ma leeyahay meel gaara ku qaabil waqti gaara qaabil dad gaarana qaabil waqti gaara marka lagu leeyahay de xilliyada chiefka la joogo ee la seexanayo looma baahna dadka ilaa qof ay duruuf wada mooyeen dadka loo yeedayana dad akhlaaq la waa inay noqdaan oo diin leh oo dhaqan leh oo nidaam leh meel gaarana guriga waa in lagu kulmaayo sida fadhiga kaliyo meelaha maartay guriga hortiisa kaliyo ana wala kulmaan laakiin qolka gaarka chiefka iyo meelaha sirhu yaalaan waa la ilaaliyaa laakiin waxa dhan ma fasaxdo qof walba uu soo galo nooc kala noqonaysa marka waxa lagu yiri ereyga hortiisana afeef yeelo saan horeyba u sheegnay aqalkaaga hortiisana waxa weeye oo diyaar dhigo waxa laga wadaa yaani qof walba uu soo gelin qof aad ka furto oo daam albaabka ka furto mooyeen qof kale uu soo gelin laakiin guriga iska balaqan jinkiga shaydaanku waxa galeen way hadaan dib ugu yar noqono mahmaadi u horeysay oo ahayd intaadan faalin ka fiirso waxa jirtay dhacdo aad khatar u ahayd runtiina ninka lagu sameeyay oo si fiican oo ka badbaaday waxa la yiri nin waxa jiray boqor ahaa ama ugaasan dhahe oo aad u gacan adkaayo ummadan iyo wada dhan haystay heer marka wuxuu gaaray dulmigiisii iyo awoodiisii iyo ku tagrifalkiisii maatay uu ku tagrifalay awoodiisa iyo xadgudubyadiisa heer waxay gaadheen oo yiraahdo neefkii xoolaha ee la qasho anu qaybaan leh dadku wada iska reermiya iska xoolo dhaqataa meela laga shaqeeyo kala ma jiro wax la cuno kala ma jiro dadku waa cadi caano waa la cabaa hilibka xoolahana waa la cunaa waxa lagu noolyahay waa inta dadana wuxuu yiri neef kasta oo la qasho ama ari ha noqdo geel ha noqdo wuxuu ha noqdo neef kasta oo la qasho anigu badh baan leeyahay badhka kala reerkii qashay iyo dadkii qashay baa iska leh waa dulmi dadkii marka arrinta way dhibsadeen laakiin way iska dulqaadanayeen ma garanayo ma awood adag iyo ciidamo iyo wax walaha xuma laga cabsanay baa jiray kulli dadka saaskaga samirsan oo neefkii la qalaba kala bar u ninka loo geeyo ayu maalinka damani wuxuu yiri wareedaha sidan ina qaban mayse dad baan nahay bila aadan ninka aan la hadallo oo dhahno ma yeelayno inaga daa dulmiga rag marka way isdawreen xali arrinta yaa sameyn kara wax sameeyo qumman bala garwaan waxa la yiri asaga su'aal weydiiyo sayno dhahnaa baa wuxuu yiri intaan soo urursano dhamaanteen hal mar aan dhahna waan diidnay ay halayri hadana wasaala shaqo noqdo waxa la yiri ninkan arrintan keenay nin malagi galay buu yahay asagu ha ku baxee ama ha ku badbaaday inagoo inaan hadlin laakiin asagu ha hadlo haye ma maxaan sameeynaa waxaan dhahaynaa adigu hadalka bilow kadibna markaad soo khatimaysa anaguna kugu dareynaa oo sidee hadda
intaanu yeedhna boqorka ogaasow boodhan sooma neefkii aad markaan qalanno aad waaxda qaadan jirtay halkaa markaa la marayo yaa waxaan dhahaynaa annaguna kuu diidnay baan kula dhahaynaaye intaa adigu soo dheh ninkii waa yahay buuli laakiin waa nin digtoon mamadii wuxuu haystaa intaadan falin ka fiirsaahay waa la soo fadhiistay ninkiina waa loo yeedhay hadalkii asagaa bilaabay wuxuu yidhi suldaanow markaasuu yidhi xoolihii aan qali jiray aasuu yidhi barhkii aan ku siin jiray kaasuu indhaha kor u taagay waxbaa jira soomaa rag kalen way fadhiyaan shib bay ka dheen marka halkaa markii hawshu marayo ee la rabay hal mar in la yidhaahdo kuu diidnay ayay ka aamuseen ninkii marka wuu arkay dabin inuu ku jiro bahal dabin ah dib uu soo bilaabay marka haddana hadalkii wuxuu yidhi bal ku celi wuxuu yidhi boqorow xoolihii aan qalan jiray barhkii aan ku siin jiray halkaa markuu maranayo indhaha kor u taagayoo weliba warankiina gacanta usoo qabsaday dadkii kalena ay aamuseen wuxuu yidhi barhkii kale aan kugu daray imaanka beelabi managa dabay nagu reeyaan barhkii kale ma ogeyd baan kugu daray kolka hore hal barh baa la siinaya soo maahayn kii kale aan kugu daray marka neef kasta oo la qala adaa iskale waxaa ka dheefaa marka waad mahadsan tahay buuli aad baad u mahadsan tahay rageed baata anaad ila shaqayn doontahay buuli hadda kadib dabin u qoolay islahaayeene iyagii oo dabinkii ku dhacay isaguna wuxuu yidhi intaadan falin ka fiirsadii buu sameeyeyoo mar labaad buu ku celiyey kolkuu ogaaday in looga baxay asagu meeluu kaga baxa ma lehe waa inuu dee dhammaystiraa raggii meesha soo ururay lahaa ninkan asagoo korka laga guudiya aad aragtaan inba meel buu u faadhuumaystay oo yidhi inkaar baa dhacday waxa weeye ka dardhigtay baa jitaa la yidhioo waxay islahaayeen badhaha la soo celiyay ama ninkan ha dhintee neefkii oo dhammaystiran baa iyo ninkii meeshii kala kacay marka waa saas oo kale waxaa la rabaa hadalkaagu inta afkaa ku jiro ammaano leeyahay intaadan falin ka fiirso billahi tawfiiq